kooxda Manchester United ayaa la sheegay inay mar kale soo bandhigto xiisaha ay u hayso ciyaaryahanka kooxda Crystal Palace Michael Olise. 22 jirkan ayay sheegtay inay doonayso, waxaana kooxda Man United war ka soo baxa lagu sheegay inay jiraan wada xaajood ay kooxda Manchester kula jirto Crystal Palace si ay saxiixa daayarkan u helaan. Olise ayaa u arkaan inuu noqon karo beddelka Rashford oo lacag 78 milyan oo euro u dhaxaysa ay ku doonayso inay kooxda PSG ay kula wareegto. 26 jirkan reer England ayaa kooxda PSG waxa ay sheegtay inay xiisaynayso si uu beddelka Mbappe u noqdo. Man United ayaa u muuqata mid suuqa u galaysa si ay beddelka Rashford ay u heli lahaayeen. kooxda reer Italy ee Juventus ayaa hogaaminaysa tartanka loogu jiro saxiixa Greenwood. 22 jirka reer England ayaa kooxda Manchester United ay doonaysaa inay iibiso. Xidigani haatan deynta ku jooga kooxda Catefa ee dalka Spain ayaa soo jiitay indhaha kooxda reer Italy, waxaana ay sheegtay Juventus inay xidigan ay doonayso inay saxiixiisa hesho. Greenwood hore waxa uu dalab uga helay kooxda Barcelona, halka sidoo kale Real ay kula biirtay. hase yeeshee kooxda Manchester United ayaa doonaysa inay ku hesho dhaqaale fiican xidigan reer England ee 22 jirka. labadii sano u dambeeyay ayuu amaah ku maqnaa, wuxuuna deyn ugu ciyaarayay kooxda Catefa. Baraha kooxda Barcelona Xavi ayaa la sheegay inuu kooxda Manchester City uu qadka taleefanka maamulkeeda uu kula xiriiray asigoo ka doonaya xidiga qadka dhexe Bernardo Silva oo 29 jir ah. Silva ayaa sheegay inuu doonayo in xilli ciyaareedkan markuu dhamaado uu ka dhaqaaqo gidi Etihad Stadium. inkastoo aan la ogeyn halka uu qaban doono, haddana kooxda Barcelona waxay sheegtay in xidigan ay xiise gooni u hayso. haatan tartanka loogu jiro Silva waxaa ku soo beertay kooxda reer Jarmal Bayern Munich, waxaana la sheegay in dhammaantood ay xidigan xiisanayaan. kooxda Chelsea ayaa ku soo beertay tartanka loogu jiro ciyaaryahanka kooxda Fulham Townsend, waxaana la sheegay inay doonayso in xidigaasi 26 jirkaasi xiise yeesho. kooxda ka dhisan garoonka Stamford Bridge ayaa maanta ku dhawaaqday inay xidigani danaynayso. inkastoo kooxda Fulham aysan ku dhawaaqin Townsend siihayntiisa, haddana waxaa la sheegay in heshiiska uu kula joogo kooxdani Fulham uu ku egyahay xilli ciyaareedkan, waxaana uu ku wareegi doonaa beeca xorta ah. si aada waxaa loola xiriirinayay kooxda Newcastle United oo xidigani si aada u danaynaysay inay la wareegaan. Manchester City ayaa ku soo biirtay tartanka loogu jiro ciyaaryahanka kooxda Chelsea ah ee amaahda uga maqan waa xidiga reer Dutch ninka la yiraahdo Alan Marston. waxaa la sheegay in xidigan 22 jirka ay kooxda Man City danaynayso. ciyaaryahankan oo haatan amaah ku jooga kooxda Borussia Dortmund ayaa waxaa la sheegay in City ay kala xaajoonayso kooxda Chelsea ayaa xidigan hore deyn ugu dirtay, lamana oga inay aqbali doonto qiimaha ay kooxda City ku doonayso oo aan la shaacinin. ciyaaryahanka afka hore ee reer Brazil ee kooxda Arsenal Gabriel Jesus ayaa sheegay inuu ku dagaalami doono booskiisa. 27 jirkan ayaa haatan waxa uu kooxda uu ka tirsan yahay Arsenal ee safka hore, hase ahaatee ma ahan mid boos joogta haysta. wuxuu sheegay Jesus inuu doonayo xilli ciyaareedka soo socda inuu ku dagaalamo booskiisa, waxaana haatan hadalkan uu imaanayaa xilli ay jiraan hadalhayn la xiriirta inuu xidigani suuragal tahay in xilli ciyaareedkan markuu dhamaado uu kooxda ka tagayo. waxa uu ka gaabsaday inuu wax faahfaahin ka bixiyo inuu kooxda ka dhaqaaqi doono xagaygan, hase yeeshee waxa uu sheegay oo kaliya inuu diyaar u yahay inuu booskiisa ku dagaalamo. kooxda Bayern Munich ayaa la sheegay inay ku soo darsatay liiska tababarayaasha ay sida aadka u xiisaynayso tababaraha kooxda Brighton ninka la yiraahdo Roberto De Zerbi. De Zerbi ayaa si aad loola xiriirinayay kooxda Liverpool muddooyinkii u dambeeyay, hase yeeshee haatan waxaad moodaa inay kooxda Liverpool ay heshay tababarihii ay danaynaysay. taasna waxay keentay in mar kale Janis ay hesho kooxda Bayern Munich. Munich ayaa la sheegay inay ku soo darsatay liistada tababarayaasha ay doonayso inay noqdaan beddelka tackle. Roberto De Zerbi oo reer Italy ah ayaa soo jiitay kooxdan reer Jarmal, waxaana la sheegay in xiriir si hoos ah uu jiro oo ay kooxda Bayern Munich la soo samaysay. kooxaha Brighton, Fulham iyo West Ham ayaa la sheegay in kooxda Benfica ay kala xiriireen ciyaaryahanka Victoria de Guimarães oo ah xidig qadka dhexe kubadda ka qaabeeya. xidigan reer iyo xidiga kale ay Jorge Silva ay doonayaan inay saxiixooda helaan. 17 milyan oo euro ayay ku doonayaan, waxaana ay kooxda Benfica ay ka gaabsatay inay faahfaahin dheeraad ka bixiso. kooxahani reer England ayaa dhammaantood safaf dheer ugu jira saxiixa daayarkan, waxayna sheegeen inay danaynayaan, hase yeeshee Benfica ma jiro hadal oo dhankeeda ka soo baxa oo la xiriira inay xidigan iibin doonto in kale. xidiga difaaca ee qadka dhexe Diego Carlos waa xidiga reer Brazil oo jirka kooxda Aston Villa ayaa noqday bartilmaameedka koowaad ee kooxda AC Milan. AC Milan waxay sheegtay inay xidigan uu yahay bartilmaameedkooda koowaad, waxaana jira inay dalabyo dhowr ah ay ka soo gudbiyeen kooxda Bayern Munich iyo kooxda Lille. hase yeeshee Aston Villa ayaa ilaa iminkan ka hadal
kooxda Inter Miami ayaa wadahadal la furtay ciyaaryahanka reer Argentina ee 36 jirka ah ninka la yiraahdo Angel Di Maria. Xiddigan oo haatan ka ciyaara horyaalka Boortaqiiska gaar ahaan kooxda Benfica ayaa la sheegay in wadaxaajoodii la furtay Miami si ay dalka Mareykanka u geeyaan.